runti wacan oo wanaagsan daawadi halkan waa madasha wararka qodobada warkaad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya war weyn oo la xiriira xaaladda gaashaanle mukhtaar xasan tifow waxaan kuu soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyay ee markaasi la xiriira xaaladda mukhtaar xasan tifow shaah macaban nolol iyo geeri qoyska gaashaanle mukhtaar xasan tifow oo la hadlay markaas warfidiyeenada waxay fariin cad u direen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya waxaan kuu soo gudbin doonaa xogo dahsoon oo guud ahaan arrimahaasi ku saabsan iyo xaaladihii ugu dambeeyay ee markaasi qoyska ay soo tabiyeen ayaan sidaas oo kale wararka iyaga kugu soo gudbin doonaa qodobada kalena waxaa qayb ka noqonaya duqeymo culus oo xalay ilaa saakay ilaa iyo haatan ka soconaya qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe ciidanka militariga Soomaaliya oo dhaqdhaqaaqyo culus ka wada Shabeellada Dhexe ayaan soo gudbin doonaa qodobada kalena waxaa qayb ka noqonaya ciidanka militariga Soomaaliya kuwa xaqdirka deegaanka iyo sidaas oo kale ciidanka Ahlus Sunna wal Jamaaca oo isgarabsanaya waxay gudaha u galeen Camaara Qayacad Bacaadweyn iyo sidaas oo kale goobo kale oo dhowr ah ciidanku waxay sheegeen in xilligaani ay ku wajahan yihiin caadumaya dabagale iyo jawla waxaan kuu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira howlgallada soconaya shabaab oo duqeymo cirka ah ee ka dhacay mudug qasaare lagu gaarsiiyay saraakiil sarsare oo laga dilay ayaan daawadeel sidaas oo kale warka iyaga kugu soo gudbin doonaa qodobadaas iyo qodobada kale ee nagu soo kordhaynta warka iyaga aynu ku guda jirno ayaan si wada jir ah u daawan doonaa ee aan ku xasuusiyo haddii aad nagu cusub tahay in barteena YouTube subscribe aadan ka hilmaamin muuqaalka oo aad laag saartana wuxuu naga caawinayaa saaxiibo fara badan sidaas oo kale wararka iyaga inay gaaraan qaybta hoosena oo raahdaada noogu reeb waa noo muhiim ee mahadsanin daawade ugu horeyn warka iyaga aynu ku bilownay gaashaanle mukhtaar xasan tifow war iyo wacaal ayaa laga la'yahay muddo ku dhow bil tan iyo dagaalkii Coosweyne oo ay kooxda shabaab halkaasi ku soo qaadeen warar iskhilaafsan waxay ka soo baxayaan nolol iyo geeri ilaa iyo haatan halka uu ku maqan yahay korneelka waxaynu eegi doonaa qoyskiisa oo warfidiyeenada la hadlay waxyaabaha ay ka yiraahdeen iyo fariin ay u direen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud qoyska gaashaanle mukhtaar xasan tifow oo markaasi ku magac dheeraa shaah maabe codsi iyo fariin waxay u direen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo dagaalka hogaaminaya isla markaasna ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug gaashaanle shaah maabe oo ah taliyaha guutada 25aad ee Cumar bin Khadaab wali nolol iyo geeri ayaa lagu la'yahay wixii ka dambeeyay weerarkii shabaab ay ku qaadeen deegaanka Coosweyne ee markaasi dhaca bariga Galgaduud Soomaaliya tan iyo xilligaas wixii ka dambeeyay oo ku dhawaad muddo 3 toddobaad ah laga joogo wali war iyo wacan lagama hayo kaliya waxaa soo baxaya warar iskhilaafsan qoyskiisa dhowr jeer oo hore waxay fariimo u direen xubno uu qayb ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ninkii waa la raadshay iyo lama raadin ayuu markaasi yiri cadow deeq oo isagu markaasi ah walaalka shaah maabe waxa uu sidaas oo kale xusay in loo baahan yahay in la raadiyo iyo in kale nolol iyo geeri intaba dhanka kale wuxuu sheegay cadow in warar kala duwan ay ka maqleen xogta walaalkiis oo taas oo isu soo taraysay ilaa iyo haatan aniga ninka duqeyn ayuu ku dhintay mar waa la yiri mar kalena waa nool yahay meesha uu jirana war kama hayno ayuu yiri waxa uu fariin u diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya walaalka taliye shaah maabe waxa uu sidaas oo kale sheegay in 2 toddobaad ee la soo dhaafay uu ku sugnaa magaalada Muqdisho si uu markaasi baadi goob ugu sameeyo walaalkiis oo tan ilaa iyo haatan dagaalkii Coosweyne war iyo wacaal aan laga haynin 5 maalin kadib markii dagaal lagu waayay shaah maabe qoraal la soo dhigay Facebook waxa uu ku qornaa magaca korneel mukhtaar xasan tifow shaah maabe bartaan oo la sheegay inuu taliyuhu leeyahay ayaa la soo dhigay qoraal muujinayo in uu nabad qabo jawaahir baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir isla markaasna ehel dhow ay yihiin taliye shaah maabe ayaan la xiriirnay xilligaas iyada oo sheegtay in aysan war ah ka haynin waxaana la xaqiijiyay in laga jabsaday bartiisa Facebook isagana uusan ahayn qofka qoraalka soo qoray jawaahir waxay sheegtay in laga yaabo in dad doonaya inay ku qaraabtaan magaciisa ay jabsadeen bartiisa wali waxaa jiro in aan war iyo wacaan laga haynin qoyskiisana sidan ay u baadigoobayaan dagaalkii Coosweyne
oo markaas waxyeelo ay kasoo gaartay askar ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya. Ilaa iyo haatan waxaa jira xubno kale oo markaasi ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya oo markaas la xaqiijiyay in iyaguna sidan oo kale ay u maqan yihiin. Kooxda shabaab kadib dagaalkii coos weyne ay ku soo qaadeen waxaa la xaqiijiyay in dhankooda markaas khasaare culus lagu gaarsiiyay ciidanka ka tirsan militariga Soomaaliya halkaas ay khasaare ku gaarsiiyeen. Shaah Macabe weli qoyskiisu waxay sheegeen inay baadi goob ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen isla markaasna ay u baahan yihiin in wax war ah ay ka helaan. Baaqii ugu dambeeyay iyo fariintii ay direen waxay u direen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, taas oo ku aadan in markaasi uu xal u keeno xaaladda. Walaalkiis waxa uu sheegay in nolol iyo geeri intaba la yaqaan, balse aanan laga aamusi karin walaalkiis oo ilaa iyo haatan ka maqan. Markana waxaynu eegi doonaa Mudug iyo wararkii ugu dambeeyay ee markaasi ka imaanaya. Ciidanka militariga Soomaaliya howlgallo culus ayay aroornimadii hore ee saaka waxay ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo dhaca gobolka Mudug. Ciidanku waxay la wareegeen fariisimo muhiim u ahaa kooxda shabaab. Ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya sidaas oo kale waxaa la sheegay in kaabiga ay ku hayaan magaalooyin muhiim ah oo markaasi Mudug dhaca, isla markaasna kooxda shabaab ay isaga baxeen kadib markii ay ka war heleen in ciidan ka tirsan kuwa dowladda federaalk Soomaaliya ay halkaas isaga baxeen. Ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya oo ay taageerayaan ciidamada xaq u dirirka deegaanka waxay howlgallo culus ka wadaan deegaano dhowr ah oo dhaca Mudug. Ciidanka waxaa la xaqiijiyay in gudaha ay u galeen magaalada Bacadweyn oo qiyaastii 7 kiiloomitir u jirta Camaara gobolka Mudug. Waxaa sidaas oo kale la xaqiijiyay in ciidanka oo kaashanaya ciidamo ka tirsan kuwa xaq u dirirka deegaanka iyo maamulka Ahlus Sunna wal Jamaaca ay xilligan sidaas oo kale ay qorsheynayaan inay deegaankaas ka sii gudbaan isla markaasna magaalooyin kale ay muhiim markaas ay gudaha u galaan. Ciidanku waxaa si toos ah loo xaqiijiyay in gacanta ay ku dhigaan Camaara. Dagaal ka dhacay Qayacad kadibna ay u suurto gashay in halkaas ay si weyn markaas ciidanku ay gudaha ugu galaan. Ciidanku waxay si toos ah la wareegeen Camaara, Qayacad, Bacadweyn, waxaana la sheegay inay qorsheynayaan Caad, Duma iyo Dabagala iyo Jowla in markaas maalmaha nagu soo aadan ay markaas ciidanka gaaraan. Maalmihii aynu ka soo gudubnay Mudug waxaa ka soconaya howlgallo culus. Shalay ayay ahayd qodqod markii uu ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeya ciidan ka tirsan kuwa dowladda federaalk Soomaaliya oo garab weerar ka helaya xaq u dirirka deegaanka iyo ciidanka markaas Ahlus Sunna wal Jamaaca ay shabaab jab xoogan ku gaarsiiyeen qodqod. Sidaas oo kale waxaa la xaqiijiyay dagaalkii shalay inay barbar socdeen duqeymo culus oo kooxda markaas lala eegtay isla markaasna khasaare lagu gaarsiiyay. Waxaa muuqata xilligan howlgalka in uu sii xoogaystay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna weli uu ku sugan yahay Dhuusamareeb isla markaasna baaqi uu ku sii ahaan doono ilaa iyo kooxda inta laga saarayo deegaano iyo degmooyin dhowr ay kaga sugan yihiin labada maamul ee Galmudug iyo Hirshabelle. Markii labada maamul laga saaray kadibna madaxweynaha uu qorsheenayo bilaabashada wejiga labaad dagaalka ka dhanka ah kooxda. Daawada waad ku mahadsantahay la socodkii la jaanqaadka warkayaga. Haddii ay tahay booqashadaadii kugu horeysay barteena YouTube aan ku xasuusiyo inaad subscribe noo saarto muuqaalkeena. Daawade laag noo saar qaybta hoose commentigana noogu reeb oraahdaada kaaga aadan wararkii warbixinadan kuu soo gudbinayna mahadsanid.